waxaa xalay magaalada Nairobi ku geeriyooday maantana lagu aasay Ibraahim Xasan Daahiye oo ahaa macallin iyo sidoo kale shakhsi si weyn uga soo shaqeeyay dhanka waxbarashada ee gobolka Waqooyi Bari si gaar ah countiga Wajeer. Waxa uu soo saaray oo uu soo caawiyay arday badan kuwaas iyaga ah oo qaarkood danyar ahaa ama u badnaa danyar. Haddaba geeridiisa iyo taariikhdiisaba waxaynu ka wareysanay Sheekh Cabdisalaan Sheekh Maxamed. إنا لله وإنا إليه راجعون. حالي waxaa ku geeriyooday magaalada Nairobi walaalkeen Ibraahim Xasan Daahiye oo ma aragtay nin waxgarad aqoon-yahan oday caaqil ummadana usoo khidmay xagga tacliinta iyo xagga odaynimada ma aragtay ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Nairobi. maanta duhurkiina waxaa janaasadiisa lagu tukaday Masjid Nuur South Sea waxaana lagu aasay qabuurtii Langata ee qabuurta muslimiinta. marka waxaan tacsiye u diraynaa ehelkii uu ka dhintay, waxaana ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa inuu u dambi dhaafo, inuu u naxariisto, inuu jannadiisa firdowsa u geliyo. إلهي سبحانه وتعالى إلهي وان كبرينا قبرك واسعيه قولك معرفة إجابة صح عن إلهي إنه معرفة قصوه. آمين. wuxuu ahaa sida aad sheegtay nin oday ah sidoo kalena ka soo shaqeeyay meelo badan ummadda ka soo caawiyay dhanka waxbarashada. haddaynu ka bilaabno countiga Wajeer dowladdii dhexe ayuu u weynaa dhanka waxbarashada. waxyaabihii uu ka qabtay ugu waaweynaa maxaa ka mid ahaa? khayr allah ku siiyo. macallin Ibraahim wuxuu ahaa macallimiinta aad iyo aad caanka uga gobolkeena North Eastern NFD, waana ma aragtay wuxuu qayb weyn ka qaatay horumarinta tacliinta gobolkaas. wuxuu ku bilaabay shaqadiisa macallinimo ku bilaabay oo ma aragtay iskuulka dugsiga hoose ayuu akhrin jiray. marka dadkii uu soo waxbaray waxaa ka mid ninkii xildhibaanka hore uu ahaan jiray koonfurta Wajeer Dr. Omar ayaa ka mid dadkii uu soo waxbaray iyo dad badan oo asaga la mid muddo kadibna macallinkii qaybta maamulka ayuu u wareegay. qayb maamulkaas oo ma aragtay uu ka soo bilaabay meel hoose ilaa uu degmo u weynaado, ilaa uu markii dambe gobolka dhanba ma aragtay uu u weynaado. kadibna waxaa loo soo bedelay Nairobi oo qaybta ma aragtay hay-adda u xilsaaran macallimiinta ee TSC loo magacaabo ayuu markii dambe ayuu maamulayaasheeda sare ka mid ahaa ilaa uu ma aragtay markii dambena waqtiga xilligii shaqada ma aragtay retire laga qaadanayo uu ku gaaro. marka macallinka taariikh dheer buu ku leeyahay, hadda ma xadidi kari, laakiin waxaan u malaynayaa dhowr iyo soddon kama yara inta uu ka soo shaqeeyey waxda tacliinta. marka macallinka sida runtii wuxuu caan ku ahaa horta nin aad iyo aad u degan buu ahaa, nin ma aragtay xaq dhoorna uu ahaa, nin ma aragtay waxqabadkiisana uu ma aragtay aad iyo aad u tafaxtiran yahay oo ma aragtay shaqadiisa inuu sugo sidii la rabay inuu u qabto ayuu ahaa. yacni macnaahu shawaajibkii shaqada si daacadnimo ayuu macallinka ayuu u gutay, Allah u naxariistay. sifooyinkiisa macallinka waxaa ka mid ahaa inuu aad iyo aad u caawin jiray ardada waxay danyarta oo ma aragtay aan dhaqaale ay ku akhristaan aan haysanin. aad iyo aad buu arday badan u garab qabtay. wax uu ma aragtay wax kharash u raadiye noqotaa, wax uu waraaq u qoro noqotaa, wax uu jeebkiisa wax uga bixiyo noqotaa.
marka maanta waxaad arkaysaa intaasoo maaragtay arday oo kule wadaadkaasa berigii uu meesha mas-uulka ahaa ayaa maaragtay caawi boqolaal noocaas oo qotood arkaysaa marka maamulkana wuu ku wanaagsanaa diinta iyo akhlaaqdana wuu ku wanaagsanaa ardada iyo macalimiinta oo maaragtay mas-uulka ahaa kuddin wuu wanaagsanaa marka nin taariikh sida runtii waxaan dhihi karaa nadiif kusoo qaatay noloshiisa shaqada ayuu ahaa macalinka maaragtay allah u naxariista insha allah amiin ugu dambeyntii intaanan ka bixin wuxuu u wareegay dhanka maamulka iyo dowladnimada wuxuu noqday madaxii shaqaalaha countiga Wajeer 2013 dowladii hore Axmed Cabdullaahi Jiir shantiisii sano ee hore waxyaabihii ugu waaweynaa ay xilligaas iyadana lagu xasuusto maxaa ka mid ahaa waa tahay macalinka allah u naxariista waxa weeyaan wuxuu ka noqday gudoomiyihii guddiga shaqaalaha maaragtay khidmada shaqaalaha Miss Public Service Board ka yiraahdo marka saad ogtahay guddiyaasha way cusbaayeen waqtiga iyada marka mas'uuliyiinta madaxda ka gudoomiye ka ahayn waxay badi ka shaqeeyeen sida u dhisi lahaayeen asaaska hay'adaas marka waxa weeyaan macalinka isagoo ka faa'iideysanaya khibradii uu soo qaatay markii uu maamulka ahaa dhinaca tacliinta ayaa aad u kaalmaysay inuu guddiga maaragtay asaas wanaagsan uu maaragtay uu sameeyo marka waxa weeyaa waxaan 6 sano oo meeshaas uu mas'uulka ahaa waxa weeyaa waxaan u maleynayaa wax dhib oo weyn oo shaqaalihii laga sheegay ma jirin bal asaas wanaagsan ayuu u sameeyay dowladii wixii ay ku caga dhigan lahayd shaqaalihii sidii loo cayimi lahaa iyo maaragtay waaxyihii kala duwanaa maaragtay sidii dadka loo shaqaaleyn lahaa arrimahaas oo dhan buu maaragtay isku toosi macalinka waxaan u maleynayaa asaas wanaagsan buu u dhisay guddigaas Wajeer waqtigii uu mas'uulka ahaa oo guddiyaasha marka asaga ka dambeeyna sida aan filaya meesha unbay kasii ambaqaadayeen marka asaas wanaagsan oo degan oo maaragtay wax qabad leh oo maaragtay ayuu u sameeyay khayr allah si allahna maaragtay allah u naxariisto maya waa insha allahu tacaala haddii waxaanu leenahay saa horaantiiba u sheegnay waxaan leenahay dadka mas'uuliyadda loo dhiibo oo ma aragtay inay ku daydaan ninku dayasho leh way sida runtii marka ay noqoto xagga diinta marka ay noqoto xagga akhlaaqda marka ay noqoto xagga degnaashada marka ay noqoto ma aragtay garsoorka iyo ma aragtay go'aanka marka waxaan u maleynayaa nin lagu daydo ayuu ahaa xagga maamulka marka ninkaas marxuumkaas wadadii uu soo maray iyo maamulka uu soo qabtay iyo sida wax u qabtay inaan ku dayano oo ka faa'iideysano oo annagana maaragtay inteena mas'uuliyiinta ay maaragtay wax loo dhiibo si amaane iyo si wanaagsan iyo maaragtay ay ummadda u khidmayaan intaas maaragtay u maleynayaa ku dayasho leh haddaan intaas sameynana asagana sidaq ay u noqonaysaa insha allahu tacaala waa tahay sheekh cabdisalaam aad baad u mahadsan tahay waa mahad idinkaa mudan axsanta